بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kasta aad joogtaan ba Allah wadala dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurkan safmareenka ee coronavirus iyo cudurro kaleba waa maalinimo axada 9 November 2020 cudurka coronavirus waa uu jiraa oo dunida waa ka jira laakiin waxa soo baxaya hadaladii ugu dambeeyay shirkadaha qaar ee ah talaal ayaa soo baxaya kaasoo wax ka qaban kara joojin kara isla markaasina in la isu gudbiyo hor istaagi kara laakiin weli lama oga tan iyo inta la soo saarayo kadibna dadka lagu talaali doono biidnillaahi kariim haddaynu fiirino guud ahaanba UK waxaa ka socda dadaallo xoog leh iyo barnaamijyo la doonayo dadka in laga dhaadhiciyo qaabka iyo sida cudurkan la isaga ilaalin karo loogana fogaan karo isla markaasina dadku ay u noqon lahaayeen kuwa si nabada ku noolaada dadka kalena nabadgeliya taasoo loola jeedo haddii ay cudurka qabaan iyo haddii aysan qabinba inay aad u taxadiraan oo sankii afka ay xirtaan isla markaasina ay kala fogaadaan wasiir ka tirsan xukuumadda UK ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ragga iyagu baarlamaanka ka tirsan UK looga baahan yahay inay taageeraan barnaamijka dawladdu ay ku xanibayso meelo badan oo ka mid ah guud ahaanba UK taasoo ula jeedaan haddii ay aqbalaan oo ay taageeraan ragga xildhibaanada ee baarlamaanka arrinka in arrintu ay noqonayso mid yaraysa faafitaanka cudurka coronavirus uu faafayo laakiin haddii ay jirto bay yiraahdeen in xildhibaanada baarlamaanku ay arrintaa kasoo horjeestaan marka la hordhigo inay taasi keeni karto dadku inay aad isugu qamaamaan oo markaas ay dhici karto cudurku inuu si aad iyo aad u sii fido waxa ay ka dhawaajiyeen inay lagama maarmaan tahay in la ogaado in xanibaadihii la soo maray ay wax tareen qaarkoodna aanay waxba tarin kuwa sida aadkaa loo fuliyey bay sheegeen inay wax tareen kuwa laakiin af ahaan loo sheegay laakiin aan la fulin inaanay haba yaraatee aanay waxba tarin waxaa haddaba arrinkani kusoo beegmaya iyadoo maalinimada arbacada ee soo socota ay ku eg tahay 4 ee xabnibaada buuxday ee England lagu soo rogay taasoo ku eg marka la fiiriyo 2 bisha December wixii markaa ka dambeeya xukuumadda UK waxa ay shaaca ka qaaday in uu bilaabanayo barnaamij 3 qaybood amaba feejignaan 3 heer ah oo ah heerka dhexe heerka sare iyo heerka kale aadka u sareeya taas oo lagu qiimeynayo guud ahaanba UK marka la fiiriyo xaaladaha deegaanada kala duwan iyo gobolada iyo degmooyinka waxa ay sheegeen arrinta lagu bedelayo 2 December in la eegi doono isla markaasina aad loo adkeyn doono oo dadka reer UK laga rabo dhammaantood inay islaaliyaan ay feejignaadaan oo ay markaasi ku dadaalaan in mar walba ay islaaliyaan oo ay qaataan awaamiirta ka imanaysa maamulayaasha caafimaadka iyo guud ahaanba maamulayaasha UK arrintan iyada ah ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalintii shalay oo sabti oo kaliya laga arkay cudurka dadka markii laga eegay 15,871 iyadoo dhinaca kalena ay dhinteen ee dadka badan 400 iyo weliba 97 ruux taas oo markaasi ka dhigaysa tirada guud ee UK cudurka uga dhimatay guud ahaanba marka la fiiriyo 58,030 ruux taasoo ah tiro aad u badan laakiin qolyaha iyagu dhinaca baaritaanada iyo dhinaca qoraaladu waxay sheegayaan inay dhici karto tirada dadka cudurka uu soo ritay tirada inay ka badan karto isla markaasina dadka dhintana intaas inay ka tira badnaan karaan dhinaca kale UK waxa ay magacawday wasiir cusub oo isagu qaabilsanaan doona arrimaha talaalka iyo fiditaankiisa taas oo loola jeedo talaalada qaybaha kala duwan ee la wado in ay noqdaan kuwa la meel mariyo ilaa iyo kulaylaha soo socda marka la bilaabo arrintaas ayaa waxaa looga gol leeyahay talaalada oo la adeegsada inay noqonayaan kuwa waxtar leh oo markaas cudurka loo caalwaayo wax ka qaban kara UK waxay hore shaaca ugu qaaday in la sameynayo goobo waaweyn oo cusub oo dadka lagu talaalo iyo weliba haddii ay tahay xarumaha dhaqaatiirta dadka caafimaadkooda qaabilsan iyo isbitaalada kala duwan iyo weliba xarumaha kale waaweyn ee dhinaca isboortiga waxa kale oo qoliyaha caafimaadka ee UK ay shaaca ka qaadeen in ay jiri doonaan barnaamij ay dawladda wado oo muxuu yahay barnaamijkaasi waxa uu noqonayaa in dadka loo qaybiyo vitamin D-ga oo la yiri dadka u nugul xanuunada iyo dadka waayeelka iyo dadka kaleba in la siiyo laga maarmaan tahay maxaa yeelay waxa ay sheegeen qoliyaha caafimaadka ee UK in vitaminkaasi D uu yahay mid u roon guud ahaanba dadka xagga caafimaadka hadday tahay ilkaha hadday tahay lafaha iyo hadday tahay murqaha waxay sheegeen in maqaarka ama diirka bini aadamku uu sameeyo vitamin D marka cadceed fiican ay jirto laakiin hadday taas jirin xaalku ma qumana isla marhaantaasina loo baahan yahay dadku inay aad u adeegsadaan barnaamijkaas dhinaca qaybinta vitamin D-ga si lacag la'aan ama bilaasha ayaa dawladda UK waxa ay bilowday bishii October ee la soo dhaafay waxaana ay wadi doontaa ilaa bisha March 2021 iyadoo ku dhiirigelinaysa qof kasta oo reer UK inuu dadaal xoog la sameeyo oo caafimaadkiisa ku dadaalo maxaa yeelay
vitamin D-gu wuxuu muhiim u yahay caafimaadka bini'aadamka sida qolyaha caafimaadku ay ka dhawaajinayaan. dadkan haddaba geeriyoode 497 ah ayaa waxa ay marka la fiiriyo UK u kala qaybsanayeen 397 England ka dhimatay 44 dhinaca Scotland ka dhimatay 29 dhinaca Wales ka dhimatay iyo 9 ka dhimatay dhinaca waqooyiga Ireland. tira ahaan marka la fiiriyo waxay isku noqonaysaa tiradaas hore aan hore u sheegnay taasoo ah tira aad u badan marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay dadka ka dhimanaya guud ahaanba UK. haddaynu dib u milicsano haddii sabtidii ay dhinteen 497 maalintii ka horreysay ee jimcihii waxaa dhintay 521 sida la sheegay. maalintii kasii horreysay waxaa dhintay 608. maalintii kasii horreysay waxaa dhintay 492. markaas maalmihii ugu dambeeyey xaalkuma aanu wanaagsanayn oo dhimashadu aad bay u badneed, laakiin dhinaca kale dadka cudurka uu soo ridinaya iyaga laftooda ma aanay yareen oo waa ay badnaayeen. waxaa haddaba la eegayaa xilliga qaboobaha ee soo socda ee bilowday oo iminka bilow ah qabowgii 6 biloodna ay ku sheegeen qolyaha dhinaca cimiladu in qabowgaasi uu jirayo. qabowgu uu yahay midka uu saaxiibka laga yahay cudurka coronaviruska. laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha caafimaadku waxay hore uga dhawaajisay in qaboobo xoogli uu soo socdo marka la fiiriyo reer Yurub iyo meelo kale oo adduunyada ka mid ah sida weliba Canada iyo ilaa Mareykanka, taas oo la sheegay in xaalku aanu wanaagsanaan doonin oo laga rabo dadku inay aad u dadaalaan islaaliyaan. haddii talaalka la bilaabo sida la sheegay bisha December ee soo socota waxay noqonaysaa in dad badan ay ka faa'iidi karaan waxtarkiisa iyadoo shirkadaha kala duwan ee Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna iyo weliba AstraZeneca iyo Oxford University iyo weliba Sputnik dhammaantoodba ay ka dhawaajiyaan tallaaladoodii inay diyaar yihiin oo waxtarkoodina ay hubiyaan iyagoo kale yiri 92%, 94%, 90% iyo 95%. waxaa daba la eegayaa guud ahaanba shirkadahaasi kala duwani ogolaanshaha ugu dambeeya markay helaan in tallaalku uu ka bilowdo guud ahaanba caalamka, iyadoo weliba wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan wadamadu inta badan inay dalbadeen doosaskii loo baahnaa sida reer Yurub oo shaaca ka qaaday 300 milyan oo doos inay dalbadeen oo talaala ay doonayaan dadkooda inay ku talaalaan. qofkiiba waxaa ku filan kara baa la yiri adduunyada 2 doos oo maanta marka hal doos lagu siiyo 4 toddobaad ayaa la sugayaa doos kale ayaa lagu siinayaa. waa tijaabadii la qaaday, laakiin qolyaha qaar waxay leeyihiin qofka marka la siiyo doos toddobaad kadib ayaa la sugayaa ama 2 toddobaad, laakiin taas waxay ku xirnaan doontaa qolyaha saynisyahanada iyo qolyaha caafimaadka iyo weliba talaalka laftiisa ayaa guud ahaan isku mid ah laakiin waxyaabo ku kala duwan xagga marka la kaydinayo oo Oxford University iyo AstraZeneca waxay yiraahdeen talaalkeena fridge-ka caadiga ama farinjeerka ama qaboojiyaha ayaa la gelin karaa, laakiin Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna koodu waxa u baahnaanayaa qabow aad u badan sida la sheegay oo kan waa uu ka duwanaanaya. waxaan hadaba eegi doonaa talaalada biidnillahi kariim marka la soo ogolaado oo la qaybiyo dadku ay qaataan xaalku sida uu noqdo in cudurka uu ka hortago inuu ka hortago in dadku isu gudbiyaan cudurka iyo waxtarkiisa guud ahaanba. laakiin dadka adduunyadu cudurka way u kala nugul yihiin. talaalka laftiisa ayaa waxaa la isweydiiyey inay dhici karto inuu dhibaato keeni karo, laakiin qolyahan talaalada ee shirkadaha waxay isku raaceen in waxoogaa madax xanuuni uu jiri karo, dadka qaarna murquhu ay xanuuni karaan, laakiin aysan ahayn muddo aad u badan. waxaa intaa dheer dadka qaar inay yiraahdeen qofka laftiisa marka la talaalo dadka qaar in meesha laga talaalo ay wax ka arki karaan. intaasi oo dhan waxyaabo soo socda aan weli la gaarin laakiin la eegi doono. marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxaa fududeeya shirkadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa shirkadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK. xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton, halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba. ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan, waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida, waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada aan badino nadaafadana aan ku dadaalno. waa
maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadanno ka hortagga coronavirus maasha allah